بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن oo wanaagsan daawadayaal meel kasto codkayaga iyo muuqaalkayagu idinka soo gaarayo ku soo dhawaada warkii Somali Channel oo si toos ah idinka iman doona xarunta Somali Channel ku leeyahay magaalada Hargeysa. warkana waxa uu diyaara inuu idin soo tabiyo anigoo Xasan Maalidara. qodobada warka aad ku daawan doontaan xilli tabintani waxa kamid ah taliska ciidanka gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay kooxo hubaysan oo dumar kala duwan ku dilay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho. musharaxa madaxweynaha xisbiga macaaridka ee Jamaal Cali Xuseen ayaa dacwad ka dhan ah gudoomiyaha xisbiga Faysal Cali Waraabe u gudbiyay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda. مسؤولين كتيرسن دولة فدرالك Soomaaliyana waxay ka qayb galeen tartanka Quraan akhriska oo ay ka qayb galayaan badi arday ka kala timiday gobolada Soomaaliya. golaha wakiilada Somaliland waxay ansixiyeen xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha oo hore madaxweynaha Somaliland uga dalbaday in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha. wararka dhinaca dibadda aanu idinka hayna daawadayaal waxa kamid ah wadanka Ecuador oo uu ku dhuftay dhul gariir xoogani. intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon leh. qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsanba waxaad ku daawan doontaan warka balse marka hore qadar adeega bulshada.